Madax xanuunka hal dhinac ama goonjabka loo yaqaano sababaha keena iyo daawada. Asxaabta waa idin salaamay sidaan sharaf leh waxaan idin leeyahay mar kale iyo maqal cusub. Maanta waxaan rabaa taxanayn caafimaadka inaan kugu soo gudbiyo muuqaalkan oo faahfaahsan la socod wanaagsan. Fadlan haddaa channelka cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo biir asxaabteena ka mid noqo. Haddaa hor inoo joogtin waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay. Muuqaalkan noo sii faafiya share like comment waxaangiina wixii su'aal ah qabtin baa toos comment noo soo daa la socod wanaagsan muuqaalkan oo faahfaahsan. Madaxa oo hal dhinac ka xanuuna af Soomaaliga waxaa lagu dhahaa goonjab ama goonjabshe. Ingiriiskuna waxaa la dhahaa migraine, Carabigana al-sadaac. Wuxuu ka dhashaa xanuunkan neerfayaasha iyo dhiig mareennada iyo maskaxda marka mushkilo qabsato. Wuxuu ku badan yahay dumarka. Madaxa ayaa qofka xanuuna ama dikaama waana hal dhinac. Marmarka qaar labada dhinac ayuu aadaa xanuunka. Qofka waxaa dhiba iftiinka xooga badan. Sababo badan ayaa keena waxaa ka mid ah qodobka koowaad daalka nafsiga ah. Qofku markuu daalo neerfayaashii aad u shaqeynayaan naftikooda way daalayaan maskaxdii way daalaysaa way keeni kartaa qofka inuu madaxa ama goonjab ku dhaco madax xanuun ku dhaco. Labo qofka inuu iska badiyo qaxwada ama shaaha. Qofka daalku intuu iskaga baabi'inayo qaxwada iyo shaaha ay xanuunka inuu ku tala bato ayuu wuxuu u keeni karaa cudurkaas loo yaqaano goonjabka. Saddex isbeddelka jawiga. Qofka jawiga ku noolaay wadanka ku noolaay oo ka tago wadan kale oo taga jawi kale waaye halkii inuu isbedel la yaabaa sidoo kalena hormoonadii inuu wax ku maanayo. Isbeddelka hormoonada dumarka sida dhiigga caadada uurka iyo wixii la midka markii xaaladdaas la joogana iyadana way isbedelaa hormoonadii ama neerfayaashii way isbedelaan goonjabka way keeni karaan. Waxaa kale keeni kara qodobka shanaad iftiinka xoog badan iyo buuqa iyo qaylada. Iftiinka xoog badan laptopka ama mobilka ama lightka oo guriga laga shito wuxuu ahaada lightka zaidka iftiinka zaidkana asna wuu keenaa madax xanuunka zaidka iyo goonjabka. Hurdo la'aanta qofka hadduu hurdo la'aan uu yahay madaxa hal dhinac inuu xanuun laga yaabaa. Sidoo kale waxaa keeni kara daawooyinka qaar oo la isticmaalo. Marka hadda waxaan rabnaa daawooyinka iyo ka dabiici iyo ka daawooyin caadi jirma. Taladaas aan ku darsanayaa marka qofka hadduu rabo si dabiici ah inuu uga caafimaado waxaa laga rabaa inuu ka fogaado sababaha aan soo sheegnay todobadii sabab aan soo sheegnay inuu ka fogaado. Waxa kale uu adeegsan karaa daawooyinka xanuunka joojiya sida salmeterol ama acetaminophen. Waa kaniiniyaal u roon goonjabka. Labada way u roon yihiin midka u fudud qofka ayuu qaadan karaa. Taladaas ama daawooyinkaas waad ku daaweyn kartaa. Muuqaalkeena halkaas inuu og yahay aan ku maasantahay daawashada daawatay. Fadlan haddaa channelka ku cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo biir ka mid noqo asxaabteena haddaa hor inoo joogtin ku maasan tahay. Wixii aad su'aal qabto bad hoose commentiga u reeb ana kaga soo jawaab doona. Maasantiin.